waagaag warar kale ayaa inoo soo socdo akhbaaraadka caalamka ku saabsan xubintii cayaaraha iyo tii ganacsiga balse iminkan aynu eegno magaalada Addis Ababa oo ay ku shirsan yihiin madaxda Afrika. madaxweynaha Soomaaliya oo kamid ah hogaamiyaasha Afrika ee Addis Ababa jooga ayaa ka sokow kulanka guud ee madaxda Afrika ay halka ku leeyihiin waxa uu Addis Ababa kulamo gaar ah uu kula qaatay madax dhowr ah oo shirkaasi ka soo qayb galay oo Afrikaana. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu shir wajiyo badan leh oo Addis Ababa uu kula yeeshay madaxda dalalka Ethiopia, Djibouti, Sudan, Equatoria, Guinea iyo Koonfur Afrika. waxa uuna kala hadlay sar u qaadida xiriirka iyo danaha ay wadaagaan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale la kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo ay ka wada hadleen horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia, dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka Geeska Afrika iyo iskaashiga dhinaca amniga ee labada dal. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay wada qaateen kulan qada ah waxa ayna labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa dhigiisa Djibouti uga mahadceliyay hilka walaaltinimo iyo garab istaaga joogtada ah ee ay dawladda iyo shacabka Djibouti u fidiyaan walaalahooda Soomaaliya. waxaana Djibouti ay ka mid tahay wadamada ciidamada nabad ilaalinta u soo diray Soomaaliya. ciidamadooduna waxa ay ka howlgalaan gobolada dhexe gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan. haddaba muhiimadda ay xambaarsanaayeen kulamadaasi waxaa faahfaahin kooban ka bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee Addis Ababa jooga. maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uga qayb galaya magaalada Addis Ababa shirweynaha madaxeedka ee dalalka Afrika sanadkii ay mar isugu yimaadaan. shirkaas oo shalay bilowday madaxweynaha ka sokow hadalkii uu ka jeediyey shirkaas oo madaxda Afrikaanka ee goobjoog ahaa u jeediyey wuxuu sii waday kulamadii uu la yeelanayay madaxda dalalka Afrikaanka ah. intuu yimidna wuxuu arkay madax badan ka mid yihiin kuwa dalalka Afrikaanka ah, xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub iyo madax kaleeto. maanta madaxweynuhu wuxuu la kulmay 5 madaxweyne: madaxweynaha dalka Equatorial Guinea Teodoro Obiang, madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa, madaxweynaha Sudan Omar Hassan al-Bashir. madaxweynaha Sudan wuxuu madaxweyne Farmaajo uga mahadnaqay taageerada joogtada ee Sudan ay la garab taagan tahay Soomaaliya oo ay ugu horeyso ardada tirada badan oo jaamacadaha Sudan wax ka barta. marka iyo taageerada ay Sudan iyo walaalnimada ay la garab taagan tahay Soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii xiriirkaas walaalnimo loo sii xoojin lahaa. sidoo kale madaxweynaha South Africa wuxuu kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo South Africa ka dhaxeeya sidii loo sii xoojin lahaa. madaxweynaha South Africa gaar ahaan iyo madaxweynaha Equatorial Guinea labaduba waxay tilmaameen sida ay Soomaaliya ugu hayaan abaal joogta iyadoo ay Soomaaliya ay ahayd dalalkii ugu horeeyay ama ugu taageerada badnaa dalalkaas markay ama u dagaalamayeen xorriyadooda. Equatorial Guinea oo kaleeto oo madaxweynahoodu uu u sheegay madaxweynaheena inay Soomaaliya ahayd dalkii ugu horeeyay ee aad u garab istaagay markay xorriyadda qaateen, una dareemayay inuu Soomaaliya aad ugu daymaysan yahay. ugu dambeystii madaxweynuhu wuxuu la qadeeyay maanta oo ay muddo sheekaysteen madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaalnimo aad u dhow ee labada dal ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti.